وأيان سيدي أن وزيرك دكدها لا يقوم مجعابي سؤالها آدي يقول بدنايا وحال لها دكدو قرما فريسا سؤال شيء يقول بدنايا وحيا دكدي قرما لفرايا وحنا أقصونا هاي دكدو هوبيو إن مدة لحدا سنة كبدان لهذا الهاي فروتان كذا مركز دتك وحن كوير هذا وان كلك افتما مركز اللي يراهدو دكدي قرمات فريسا وحن يراهدا دكدان لحدا سنة كور هيا نوضي ما عنده ديجي شيء كي وحده يري أنا وعروه يريرا أو هوبيو جوجنا هيا نوضيه ومركز هذا مجلس إيش يقول هذا حسوسا يلا أجنبي وعدان وإسلا سعودية يمدوي هذا واحد يمادين ما حسوسا كروي لكن واحد دي جنوي لما كان عدان كان دكده بيه فرايان واللحن سنكور مركا waxaan iraahdaa dekadii 60 sano ka hor sidaas la lahaa hadda laba bilood kaliya aan u maleynaa magacaabanahay hada saas ma dhaweey xoogaa bal su'aasha la iga yaray wax waa soo wadaa marka marti sharafka halkan joogto waxaan caaw idin sheegayaa wixii aan soo wadaan raba halkan inaan kula wadaago ayadoo runtii ay tahay faan oo la farkama qodna oo waqtigu runtii dee aad u dheer yahay oo dekadin la dhisaahi ay waqti u baahan tahay runaantii dad badan waxay weydiiyaan warniyo shaqada u dhibadan waaye maxaad maaragtay ma ka dhabayn kartaa qofkuna sidiisa waxa uu aaminsan yahay waa uu ku qasban yahay runtii waxa uu aaminsan yahay inuu qaban karo waa waxa uu qofku laga rabo inuu qabto hadaba aaminsan tahay inaad qaban karto runtii dabeecadayda intii taqaan waa taqaanaa uma aana dhalanin runtii wax oo aanan qaban karin aan ka shaqeey bini aadan baan ahay wax walbaana waa masahlana laakiin waxaan aaminay markii madaxweyne Axmed Cabdi Kaari yiri waxaan rabaa shaqadaas inaad qabatid runtii waxay ahayd shaqo aan aaminsanahay oo aaminsanaa inaan qaban karo sidaasaana waxay keentay runtii idaayina hobyo runtii waqti badan ayaa lagu soo noqnoqday oo dekada warkeeda loo yimid waxaana laga yaabaa dad badan hadda laga yaabo inay aaminsan yihiin in wali maaragtay ay tahay sidii loo bartay dadku waa niyad jabayn runtii aad bay runtii reer hobyo iyo reer galmudug baa uga niyad jabayn mar walba intii la yimaado la dhagax dhigo laga tago aan dib loogu soo noqon marka haddana waxaa laga yaabaa dad badan oo maaragtay reer galmudug inay ku fakarayaan oo leeyihiin waa shaqadii ayada ahayd kulliba maaragtay xafladan iyo hawshaan waa iska ayadii laakiin waxaan rabaa inaan caawa idin sheego waa ka bedelan tahay midii hore waa ka bedelan tahay insha Allah taala hobyo ma aanan imaanin runaantii wax kale ma aanan imaanin laakiin waxaan u nimid dadka reer galmudugna fariin uga dirno halkaan ugana bishaareyno insha Allah taala dekadii inay furmi doonto lagana shaqay doono shaqo la yaqaano in laga qaban doono hadii Ilaahay runaantii dekada reer galmudug kaligeed runtii baahi uma qabaan Soomaali badan ayaa u qaba baahida Soomaalidaasna waxaan ugu bishaareynaynaa oo reer Hirshabelle ugu horeeyaan ayagana hadii Ilaahay idmo waan ugu bishaareynaynaa in qaybteedu ka noqon doonaan hadii Ilaahay idmo oo dadka wax ku qabsada ku noolaada inay ka mid noqon doonaan insha Allah taala waxaan leeyahay hobyo uma baahna mar dambe dhagax dhig iyo sawir waxay u baahan tahay action waqtiga wax laga qaban lahaa la jooga waana ka qaban doonaa insha Allah taala runaantii hobyo quruux iyo meel istiraatiijig ah ayaa inta badan lagu sheegaa waana tahay waxaan sidii kugu bishaareynayaa in dekadii hobyo oo waqtigeedii runtii in la joogo waxa la gaaray waqtiga laga dhabayn lahaa sidii dib u qorsheynta deegaanka magaalada hobyo dhismaha dekada weyn ee la tartami karta dekadaha adduunka maalgashiga dadka dalxiiska yani maalgashi dalxiis ee soo jiita dadka iyo shirkadaha intaba
waxyaalaha runtii baahida aadka lagu qabo ka ganacsi ahaan waxaad la socotaan deegaankan galmudug inuu yahay runtii deegaankan galmudug run ahaantii wuxuu leeyahay dhaqaale aad u tiro badan oo runtii ku xiran in deked ay samaystaan reer galmudug taasoo runtii saa la socotaan dhaqaalaha ugu horeeya waxaa ka mid a xoolaheenna waxay u socdaan 48 saacadooda loo sii wadaa in laga dhoofiyo dekedaha kale dalka ku yaala runtii dadka ganacsatada ah ee reer galmudugana dhibaato weyn aad u weyn ay runtii ku qabaan waxaa ka mid ah cusbada shidaalka bad iyo beriba ceegaaga run ahaantii oo intuba ay u tahay in dekedan la furaahi wax weyn ay u tahay idan kaga sheekayn maayo runtii baahidaas waa baahiyaad ka wada dheregsan tihiin waa waxaad aad ugu wada bogtaan waa waxaad in muddaa sugayseen marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in runtii aad iyo aad loogu qanci doono mashaariicdan aan ka sheekay doono haddii ilaahay ma sidaan wax u wadno waxaa la isweydiin karaa muxuu yahay daafurkan muxuu uga gedisan yahay kuwii hore waxaan rabaa inaan idiin sheego daafurkan wuxuu uga gedisan yahay daafurkii hore reer galmudug ma aysan lahayn daafurkan reer galmudug ayaa iska leh madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya hogaamiye ka ah aniga oo la ii wakiishay oo wasaaradda dekedaha ah ayaa maaragtay hormuud ka ah waxaanan aaminsannahay inaan ka dhabay karno marka ha niyad jabinina haddaad hore u arki jirteen runtii haddaba caawa waxaan rabaa si hordhaca inaan idinkugu sheego qorshaha wasaaradda iyo sida loo dhisi doono dekedan hubiyo aragtideeda ah runtii go'aanka dawladda galmudug hadda waa in aan dekeda hubyo ku dhisanno isku tashi maalgelin waxaan ugu talagalnay oo dawladda madaxweynuhu nagu hogaaminayo ay tahay runtii isla qaadanay in maalgashi ganacsatada reer galmudug ay maalgashadaan dekedan hubyo waxaa kaloo ay u furan tahay dhammaan soomaalida kaleeto cid alle ciddii danaynaysa inay ka qayb qaadatana waa u furan tahay laakiin hormuud waxaa ka ah reer galmudug qolo walbaaba iyo qof walbaaba waxa uu leeyahay asagaa laga rabaa inay u istaagaan marka waxa aan ku tashanayno laga raba inay dhistaan u istaagaan lacagtooda geliyaan maalgashi ay si la yaqaan u maalgashadaan waxa uu noqon doonaa dadka reer galmudug cid alle ciddii kaloo soomaaliyana waa madax bannaan tahay diina waa soo dhaweynayna aad soo dhaweynayna marka la yiraahdo maalgashi waa la soconaa oo ganacsato sideedaba waxay maaragtay interestigeeda koowaad waxa weeye maxaa aniga iga soo galaya waxaan rabnaa ganacsatada reer galmudug si horu dhaca ayaa run ahaantii dadka reer galmudug aan u wada hadalnay ganacsatada reer galmudug waxaanan isku waafaqnay inay diyaar u yihiin inay maalgasho doonaan oo waxa aan meeshaan ku sheegaynaa waxa aan sheegaynaa wax hadda kadib la raadinaya maahane waa wax intaanan daafurkan samaynin la isku soo waafaqay oo loo diyaar garoobay oo ay aqbaleen in dhisaayaan waxa noo dhiman waa technicalitygi inaan maaragtay dhammaystirno iyo wixii ay u baahdeen oo markaas ah shuruucda waxaan u diyaarinay runtii hannaan sharci ee maarayn kara maalgashiga iyo damaanad maalgelin waan la soconnaa lacag aad u tiro badan baa deketaan gelaysa ganacsatadu waxay isweydiin doonaan lacagtan ma ku aamini kartaan maaragtay dekedan hubyo waxaan u garantiiraynaynaa dhammaan hannaanka sharciga ay u baahan yihiin deehaalayn golo wasiiro deehaalaayeen maaragtay baarlamaanka dhammaantoodba waxaan u garantiiraynaynaa sharciyad la yaqaano oo cid uga daba imaan karta ama cid ku qabsan karta aysan jirin haddii madaxweynaha axmed cabdi kaariye uu beri ka maalin tago madaxweynaha kaloo imaan doona ay galmudug isku qabsan doonin waqtiga loogu talagalay oo la siiyey liiskaasna cid ku qabsan doontaa aysan jirinin oo sidaas loo kalsoonin geliyo su'aasha kaleeto imaan kartaa waxay tahay deegaanku ma nabad baa arrintaas waxaan u dhaafayaa wasiirka amniga axmed macalin fiiq asagaa laga rabaa maalgeliyaasha ugu talagalay lacagtooda meeshaan inay geliyaan inay dhinaca amniga ay aamini karaan asagaa kolleyba microfonka imaan doona insha allah isagaana u sharixi doona diilam su'aasha weyn oo la isweydiinayo oo runtii
hartay oo malaynaya intaas hadda idiin sheegay oo kooban markaan idiin sharxo goorma shaqadaana bilaabo doontaa waa su'aashii de aan idiin sheegay oo warkii idin kugu bilaabay qof walba soo waxa uu leeyahay dekadii goormay bilaabo doontaa waqtigee la dhagax dhigi doonaa shaqadaas goormay bilaabanaysaa goormaan arkaynaa ciidii oo degmada hubiyo dekada hubiyo ku socota oo la leeyahay maaragtay badiyaa la duugayaa dekadii waa bilaabatay su'aashaas jawaabteeda madaxweynaha ayaan ku sharfayaa asagaan u dhaafay asagaana noo sheegi doonaa hadii ilaahay waxaan mar kale aad idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina iyo sida maaragtay howlku silent u yahay oo warkayga loo dhageystay loona sugaayay waxaanan mar kale idinkugu celinayaa bishaaraynta iyo haddii ilaahay idmo hobyo ina dhismi doonto si dhaqsaana u dhismi doonto insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq intaasaan idinkaga tabaamaasantiin